Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka daawasida. Maanta cashirkan wuxuu ku saabsan yahay applicationada diiniga ee ugu fiican. Boqol waxaa jira application saarkiisa milyan application u diini yahay hadaba keeba ku fiican ayaa maanta kasoo dhex doornay. Marka ninka waqti iska lumin han bilownaa cashirkeena. Kusoo dhawaada channelka daawasida. ugu horeynayna waxaa la yiraahdaa tasbiix counter amba tasbiix. Application aad buu runtii fiican yahay saarkiisa 100,000 in ka downgrade ratingkiisu fiican yahay. Application dadka waxaad ka faa'iideysan open markaad raadin waa tasbiix saarkiisa. Allah waa tasbiix isku celin kartid xitaa feature wuxuu leeyahay black screen ka dhigaysa sidaas kale. Allah amba wuxuu leeyahay black screen plus counter taas sameeysa marka Allah marka tirada ku tirinaysa saarkiisa. Imika waxaan haystaa tasbiixyaashan sameeyo dhan waa 6,000 saarkiisa 69,000 weeshan 69,000 saarkiisa dhamaantiin ya 230 marka saas uu tiriyaa saarkiisa oo sorry saarkiisa wax badan leeyahay xitaa inta ana ku darsaday xitaa ku darsan karaa ducada rabtid ku darsidina akhrisidid xaqa waxa taabsan saplasta kadib waxa ku qoraysa ducada rabtid Allahumma inni alhamdulillah kale saarkiisa wata alhamdulillah marka saas application fiican oo runtii aad u fiican ka faa'iideystaan leeyahay dhamaantiin waa application aad u fiican xaqa tasbiixa markaad kaliya tahay iska tasbiixsan kartaa. Application labaad in yahay waxa la memorize Quran. Application saarkiisa ratingkiisu fiican yahay waxaana downgradeystay 1 milyan in ka badan xitaa wuxuu qalmaa inaan 5 stars siiyo application-kan. Dhamaantii application-ka dadka Quraanka xafidaya saan oo kale ayaa lagu talagalay markaad furtiin open trading saas noo soo baxaya suurada rabtid ma geysan kartiin saarkiisa al-baqara inta ay dadka ku sheegay ka soo qaadba suuratul faatiha ayaan ku bilaabina xagaa markaad rabtid codka downgrade waxaad tagaysiin download kira marka sheekh rabtid ay dooraysiin soo inuu akhriyo anu waxaan dooran Cabdullah Madruud baan dooran saarkiisa kadib waxaad dooransiin suurada downgrade lahaydeen ma suuradaha oo dhan mise suurada aad rabtid xafidid ama suurada oo dhan ma rabo ka soo qaad waxaan rabaa al-fath suurada hore oo downgrade saarkiisa marka u akhrinaysa saarkiisa saarkiisa dhamaan saas ku akhrinaya suurada rabtid beddelin kartid xagaas laga bedeshaa xagaa ugu shishaysa marka saas application ku shaqeeya marka dadka Quraanka xafidaya amba rabina xafidaan waa kan wehelkiini ee downgrade waa kan application saddexaad dhikr duca application aad buruntu wallahu fiican yahay 5 star baan siiyay aad buruntu fiican yahay saarkiisa comment-kiisu fiican yahay 100,000 ay downgrade 100 in ka badan downgrade 100,000 in ka badan saarkiisa waa aad u fiican yahay hortaan furna markaas intuu soo fiican yahay application-ka basically wuxuu ku saabsan yahay ducada ayuu soo qabanaya ducada markaas aad tagayo ducada markaas aad akhristo weysida saad markaad ugu jiro after prayer markaad ilaahay u mahadnaqaysid forgiveness risk protection waxaasoo dhan markaad tawakkal markaad qeeraysan tahay markaad niyad dareentid markaad dhex xidhanaysid guriga tagisid arooti ducada arooti la akhristo ka soo qaadayaan furana iyo arooti uu ku sheegaya af carabi af english ku sheegaya xagana ku sharaxay ducadan waxa nacamde micnaheega ayuu ku sharaxaya xitaa cod buu leeyahay bas wada gureysan sound saarkiisa codkooda ku downgrade ku akhrinaya ma hadaad u akhrin kari weydo duca kastana waa yaa runtii subhanallah wa bi saarkiisa akhrinaya
way badan yihiin ducooyinka soo arkaysiin aad application u fiican yahay. Marka dadka ducada ka hela inay badan akhrisan laakiin inta badan iloowa amba ducada inta badan garan raba inay bartaan ducooyin cusub amba ducooyin ayna garaneyn xaggan ayaa ugu iman kartaa application-kan aad buu runtii u fiican yahay. Marka ducada kasoo qaba ducada jeclaatid waxaad taabsanaysaa xagga heart wadnaha kadibna hadhowda si yaroo fudud wax ku heli karta xagga yare favorite duca ku qoran tahay waatan ducadii markii saas markaa u fiican yahay runtii ka faa'iidaysta ee dhawgrista dhammaantiin. Application-ka noogu dambeeya listigeena waxaa la yidhahdaa MP3 Qur'aan baa la yidhahdaa. Application-kan aad buu runtii u fiican yahay 10 milyan ka badan dhawgrista arkaysiin horta waan furaynaa kan wuxuu ku saabsan yahay application-ka wuxuu hayaa sheekhyanta quraanka akhriya ayuu hayaa oo badan waxaa sheekh quraanka akhrisa oo dhan Soomaali, Oromo, Ethiopian, Uruguay wax kasta uu hayaa xitaa kuwa kasoo jeeda kasoo qaba South America, Brazil sheekh quraanka akhrin oo hayn ma jiro. Kuwa ku kala sheegaya kuwa ay ku jecel yihiin ay ku fiican iyo kuwa cusub dhammaantii kuwa new ugu qorantaa kuwa cusub soo arkaysiin dhammaantood cusub yihiin ama inta badan waxaan ugu jecelahay specialka awe Ali Jabir Ali Madud waa kan balan search gareeyo waa kan Ali Jabir sheekhu fiican mooy waxa star u sii waayeen markaasna la dhageystaa kadibna furaysaa. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin haddaa rabtiin la socotiin idoo quraana amba pageska waxaad taabsanaysaa pages toos buu ku keenayaa suuradda u akhrinaysa. saas u fiican yahay arkaysiin alxamdu buu ku keenayaa hadduu suurad kala akhrinayo okay hadduu suurad kala akhrinayo kasoo qaad suuratul baqara hadduu akhrinayo suuratul baqara ayuu ku keenayaa marka alif lam mim automatic buu ku keenayaa. haddaa rabtid inaad download gareysatidna mid waxaad tegaysaa recital list kasoo qaba sheekhan kasoo qaadba xagga yare download soo arkaysiin ee xaggan xigta bidixda ay taabsanaysiin. marka saas afarta application haya afartaas ay hayeen waa afarta ugu fiican runtii download gareysta. marka please subscribe ka iloobina channelka dad badan please subscribe ka iloobina like badan iska daawanino waqti badan naga soo qaadatay intaan edit gareyn waxaas oo dhan. marka like qofka u mahadnaqa like comment ka bixiya cashire inta badan cashiraanta waxaan soo dhigaa waxaan kusoo qoraa xaggan cusub ay sameeyeen youtube-ku marka xagga ka ega marka imika 2 cashir ayaan rabaa inaan soo bandhigo mid baan rabaa inaan soo bandhigo beri ama weekend insha Allah. 2 cashir mid wuxuu ku saabsan yahay KineMaster dad badan bay weydiistay KineMaster iyadoo full version ah saa loo dhaawgareeyo kaas kuwa ka labaadna waxaan rabaa Soomaalida heesaha saa loo dhaawgareeyo ama top apps saddexda topic ama saddexda cashir mid kasoo doorta oo comment-ka kusoo qora markaas aan usoo diyaarino. Mahadsantiin dhammaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.